bismillaah assalaamu calaykum kusoo dhawaada Zainab Qaali Cookings. waxaan galad sameysanaynaa ice cream. aad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe kadibna gambaleelka si aysan kuu dhaafin waxa aan soo dhigno. haddaad nala joogi jirtana waad ku mahadsan tahay daawashada iyo dhiirigelinta. haddana waxaan gudagalaynaa hadduu allaha ugu raal noqdo ice creamkeennii. waxaa weelka igu jiraa 2 xabo cambo aan soo jarjaray. waxaa kaloon hadda garaacanayaa whipped cream. waxaa kaloon ku darayaa caanaha macaan. caanaha macaan gasacas ayay ku jiraan. caanahaas ayaan ku darayaa haaf ma ku wada daraya iyagoo dhan. waxaa kaloon ku darayaa cambaha aan soo shiiday. 2 xabo cambaha aan soo shiiday ayaan ku darayaa. insha Allah caruurtu way ka helayaan asxaabta sharafta leh. galab way fiican tahay in caruurta looga farxiyo hataa adiga weyn. dad meelaha ka soo gadan laheed waxaad gacantaada ku samaysata ayaa ka fiican. sidaa oo la socdo walaalahayga sharafta leh. insha Allah hadda waan soo dhamaysanay fridge-ka ayaan gashanaynaa. qaybta freezer-ka aan gelinayaa 1 saac ama 1 saac iyo bar. intaa kadib ayaan ku soo noqonayaa insha Allah hadduu Allah awooda la ka raali noqdo. siduu ku soo baxano waan isla arki doonaa. insha Allah hadda waan ku soo noqday. sidaa ayuu u ekaaday. haddana weelashii aan ku diyaarsan lahayn ayaan ku gurayaa insha Allah asxaabta sharafta leh. sidaa oo la socda. waxaan kor kaga sii daadinayaa loos yar. hadaad rabto waa ka dhaafi kartaa. waa walaashin Zainab Qaali oo idin leh like subscribe share la wadaag asxaabtaada. wixii comment hoos noogu reeba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.